magaalada London gaar ahaan xaafad ku taala galbeedka magaalada London waxa ka dhacday habeenkii Sabtidii Axad ay soo galeysay munaasabadii sida weyn loo sugayay waa munaasabada sanadkiiba mar ay soo qaban qaabiyaan ururka la yiraahdo Haya oo ku yaala galbeedka magaalada London oo markaasi abaalmarino lagu guddoonsiiyo dadka ka tirsan Soomaalida Britain iyo Soomaalida dabadaha kaleba ee markaasi ku soo baxa xirfadahooda iyo hawlaha ay gacanta ku hayaan waxaana ka mid ah dhinacyada leego dhinaca waxbarashada iyo fanka iyo dhinaca waliba wariyeyaasha munaasabadan oo sanadkiiba ururkaasi ay soo qaban qaabiyaan ayaa dadka ku guuleystay abaalmarinada sanadkan 2011 gabagabada waxa ka mid ah inanta yare la yiraahdo Hani Sheekh oo si weyn ugu guuleysatay imtixaanada dugsiyada sare iyo Umar Ahmed oo isaguna si weyn ugu soo baxay imtixaankii ardayda Soomaalida dalka Britain ahaana kuwii kamid aha kuwa ugu horeeyay imtixaanada dugsiga sare wariyaha ka tirsan telefishinkan Universal Ridwan Xaaji Cabdi Wali ayaa sanadkan isla la siiyay abaalmarinta dhinaca wariyeyaasha waa sanadka 2011 iyadoo abaalmarintani ay guddoonsiiyeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda dalka Britain oo xafladaasi lagu martiqaaday shakhsiyaadka kale sanadkan iyaguna abaalmarinaha la guddoonsiiyay waxa kamid ah fanaanada weyne caanka Nimco Yaasiin Caraale oo noqotay fanaanada Soomaalida sanadkan 2011 farshaxanka weyne Amiin Caamir ayaa isagana loo aqoonsaday inuu yahay nin ku soo baxay xirfadiisa oo markaasi abaalmarin lagu guddoonsiiyay halkaasi haddaba wariyahayaga isagu ka soo waramay xafladaasi Cabdixafiid Maxamuud ayaa munaasabadaasi kadib waxa uu la kulmay Rashiid Aadan Jaamac oo isagu guddoomiye ururka Haya ee iyagu munaasabada sanad walba soo qaban qaabiya dhowrkii sanadood ee tagay waxaana uu weydiiyay dareenkiisu sida uu yahay السلام عليكم الحمد لله والله والله aad buu mahadsantiin dhamaantiin waxaan aad ugu mahad celinayaa marka hore sponsorski oo dahabshiil ahaa oo gacan weyn ka geystay without them runtii xafladani may suura gasheen aad baan ugu mahad celinayaa xafladan oo aad iyo aad biir gelina dadku aad uga heleen sanadkii saddexaad weeyaan waxaan moodaa sanad ka dambeeya in dadku ay sugayaan oo ay doonayaan in loo qabto xafladan oo kale waayo waxa weeyaan runtii haddaan dadkii la isugu yeedhay meel wax qabtay sanadkan ee dadka dhiirigeliyay inaanay ma garanaysaa dadkii ay dadka dhex muuqanayn marka anagu xafladan waa sanadley weeyaan aad baan loo soo abaabulay saddex bilood baan wadnay runtii sidaan sheegay waa farxad weeyaan habeen farxadeed weeyaan la isugu yimaado annaguna ururka Haya haddaan nahay runtii maanu qaban karneen haddii aanay sponsoradu dhinaca naga taagnin haddaanay bulshada miidiyadu sida TV-ga Universal oo kale aan dhinac taagnayn soo deynaynin haddaanay website-ada lagu soo qoraynin haddaanay dadkii volunteer-ka ahayn oo inta caawa 20 qof ka shaqaynaya meesha oo badankooda volunteer ahaayeen haddaanay hawsha nala qaban lahayn maanan qaban karnay runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in يعني arrintan la qayb galay nala caawiyay runtii waana farxad weeyaan aad waxaan ugu mahadnaqayaa xawaalada Abshib Cabdiraxmaan halkii la joogo gudoomiyaha UK iyo Europe oo dhana gudoomiyaha directorka UK iyo Europe oo dhana oo sida jajabnaanta bulshada horumarteeda yani meel kasta oo maanta laga yaqaano iyo waliba sponsoradii kale iyaguna gacanta ka geystay runtii aad baan ugu mahadnaqayaa Cabdixafiid ahaan aad baan ugu mahadnaqayaa xawaarinta daadiinteeda iyo barnaamijka sawdaadiinaysa ee quruxda badneed dadku aad وهجاج أننا هدان الله تلفزيون كان يونيفرسال وحنو آدي أدوه همبلييننا وري رضوان حاجي عبد ولي وبالمرين توريها سنة كان كوجوليستي هي طبعا ضدكي كلا سوماليدا بريتان كم ده هاي عالم ككلا يجينا بالمرين أهل الجدوسية